asalaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Meel walba aad joogtaan, xilli walba idintaa waxaan idin rajeynayaa caafimaad qab, nabad qab, horumar iyo guul iyo farxad aan la soo koobi karin in ilaahay idin siiyo. Maanta waxaan idin hayaa barnaamijka caafimaadka. Waxaan kusoo qaadanayaa baamiyaha iyo waxtarkiisa. Baamiyaha waxyaabo badan buu taraa, dadka ka caawiyaa, laakiin maanta waxyaabaha la arkay natiijada ka soo baxday oo caawiya baan maanta soo koobi doonaa. Haddaba baamiyaha cuntada waan ku darsanaa, waan ku macaanisnaa, waan ku quruxsanaa. Waxtarkiisa waxaa ka mid ah qofka lafaha xanuunayo, qofka lafaha garaacmayo, qofka nafaqada ka dhamaatay, meelaha isku laalaabmaya jirka, meelaha laablaabka oo xanuunayo, nafaqada markay ka dhamaato nafaqada ayuu ku soo celiyaa. Sidoo kale qofka hadduu sokor qabo ama sokor ay kusoo socoto waa ka hortagaa, wuu ka caawiyaa. Khubarada caafimaadka hadda waxayba leeyihiinba mustaqbalka dhow baarista markay soo dhammaato waxaaba la samayn doonaaba daawooyin baamiyaha ah oo sokorta ah loogu talagalay in looga hortago, lagu xaliyo. Marka sidoo kale qofka hadduu calooshiisa ay fadhiso, calooshiisa way socodsiinaysaa hadduu baamiyaha cuno. Baamiyaha dadna sidiis bay ku cunaan. Dadka dheefshiidka aad iyo aad ugu caawinayo oo kale aad iyo aad buu uga caawiyaa, aad buu ugu wanaagsan yahay. Dheefshiidka waxbuu ka qabtaa, caloosha aad buu u socodsiiyaa. Haddii caloosha ay fadhiso, caloosha u dhaqaajinayaa, aad bay u fiican tahay. Marka aan ku dadaalno waxyaabaha muhiimka ah ee nafsadeeni aad u caawinayo inaan ku dadaalno isticmaalkiisa waanaan dhibna noo keenayn. Maxaa yeelay baamiyaha cuntadaan ku darsanaa inta badan waan cunnaa, laakiin waxtarkiisi iyo faa'iidada uu leeyahay iyo guushiisi inta badan war kama hayno. Marka waa inaan xusuusinaa oo iska warqabnaa insha Allah, in isgaarsiinaa. Haddaba barnaamijyada caafimaadka aan uga hadli doono aad baan usoo badin doonaa si bulshada ugu faa'iidaysato oo guulo badan ay ka gaarto. haddii Allah awood leh uu yiraahdo dhaqtaradan la tagayay iyo daawooyinkan aan faa'iidada lahayn oo cudurro kale hor leh aan la aqoonin dadka ku beerayo ama u keenayo ama u sababayo inaan ka maaranno baa muhiim ah. waan nafsadeena daawo dabiici ah aan ku daaweyno haddii Allah awood leh yiraahdo anaga alla la kaashanayno. Marka fadlan waxaan idin ka codsanayaa inaad share-ka, like, subscribe-ka aad igu caawisaan si adinkana aad ugu faa'iidaysataan, ana dhiirgelin ay iga noqoto. Asxaabtiini iyo qaraabadiini iyo familkiinina inaad gaarsiisaan oo waa muhiim si bulshada wax badan ugu faa'iido. Mas'uuliyad baa naga saaran qof kastaba wuxuu yaqaano inuu bulshada gaarsiiyo. Rasuulkana calayhi salaatu wassalaam hadalkiisu u dambeeyay waxay walow aaya xitaa aayad inuu qofka kala gaarsiiyo, taasaan guulka ku jirtaa haddii Allah awood leh yiraahdo. wixii faa'iidada inoo leh inaan ku dadaalnaa. mujtamaca ay noqotaa mujtamac isku naxariisata. sunnada rasuulka calayhi salaatu wassalaam waa inaan qaadanaa oo qof kastaba wuxuu qofka kale ugu roon yahay uu ka caawiyo, xitaa aayad ha noqotee haddii Allah awood leh yiraahdo. intaan barnaamij lamid aan ku wada kulmi doono waxaa idinka tegayaa kheyr, bashbash iyo barwaaqo iyo guul aan la soo koobi karin haddii Allah awood leh yiraahdo. meel walba aad joogtaan farxad ku waara, horumar, guul, kheyr iyo bashbash iyo barwaaqo iyo samo iyo nabad.